Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta dhammaantiin waan idin salaamay. Maantana waxaan baranaynaa barnaamij aada u muhiima oo dad badan wax u tari kara. Barnaamijkaas wuxuu ku saabsan yahay masalan qof markuu message kuu soo diro familka ama asxaabta ama qof kale ahaado, messagekii markaad akhridid haddii aad waqti u weydid qofka wuxuu kugu dhahaa maxaa yeelay messagekii waad akhriday ima soo jawaabtid balaa balaa hadal badan ku dhahaa. Si xal baa loo helay. markaas xalkaas waxa waaye barnaamij oo la soo degaynaa hadda. barnaamijkaas wuxuu ku ogolaanayaa inaad messagekii akhridid kadib qofkiina isagoo dareemin inaad aragtay ama calaamadii ayna tusayn qofkii uu arkay messagekii. waxaan sameynaynaa Google Play. waa kan barnaamijku horey aan ula soo degay. sida ugu fudud haddaan kusoo celino Google Playga ayaan ku qoraynaa Unseen sida idiin muuqato. Unseen hadda waa kasaas igu soo baxay. kadib anigu ii degsan yahay laakiin qofka kale wuxuu dhahaa install buu dhahaa. install marka dhahdid barnaamijku wuu kuu degaa. marka hadda waxaan tegaynaa barnaamijkii oo degan oo inoo degay anagoo waqtiga ka faa'iidaysanayno. hadda barnaamijkii waa kan. waxaan sameynaynaa barnaamijkaan furaynaa. hadda wuxuu weydiinayaa inuu kugu shaqeeyo maxay tahay mobilkaaga oo ogolaanaysid shuruudaha u yaalo. waxaa ka mid a maxay ahayd inaad adigu arki karaysid ama akhrin karaysid messagekii qofkii kale isagoona dareemin. marka waxaa dhahaysaa next, waan ogolahay. messageka lagu soo diray aad akhriday sidan oo kale ayay kugu soo dhigmi doontaa ayuu ku dhahay. kadib next ayaan sii dhahaa. inta barnaamij aad isticmaashid ayaad tig siinaysaa, calaamada tig aad siinaysaa. masalan laba barnaamij ii degsan, messengerka iyo whatsappka ayaa ii degsan, kuwa kale waan iska tiray sidaa darteed imuu soo qaban. haddii aad barnaamijyada aad wada isticmaashid calaamada tig aad wada saari, kii aanad isticmaalina ma saaraysid. kadib next adhihi. hadda uu ogolaaday barnaamijkii inuu kugu shaqeeyo telefoonkaagii, uu messageka uu kusoo dhaco aad akhrin kartid qofkii kale isagoona dareemin. waxaa dhahaynaa give authorization, mana ogolaanaynaa. kadibna calaamadana saaraynaa. wuxuu ku leeyahay u ogolow maxaa yeelay message kusoo dhaco inaad akhrin kartid barnaamijkan uu kugu shaqeyn karo maxaa yeelay mobilkaaga. waxaa leenahay allow baan leenahay. hadda saamka barnaamijkii waan dhammaystirnay. barnaamijkan wuxuu kuu faa'iideynayaa inaad ka fogaatid isku dhaci xagga familka iyo friendska iyo qofka loo kugu qaaliyaba uu ku dhihi lahaa maxaa ahayd messagekeyga waad akhriday ma iisoo jawaabin. markaad fursad heshid ayaad maxaa ahayd aad u jawaabi. anagoona u faa'iidaysadayna cabdi kaga faa'iidaysana dhinaca xumaanta oo u isticmaalna dhinaca wanaaga. masalan dhibaatadii labada qof ay isku xanaaqi lahaayeen ayaan kala badbaadinaynaa. maahan qofka inaan u jawaabayno dhinaca xun aan u adeegsano, xagga wanaaga ayaan ka wadnaa. masalan haddaa busy tahay ood u jawaabi karayn qofkii, barnaamijkan ayaad isticmaali kartaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.